السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنالك مركز سود وهذا هذه هذا ما سنتهين ما أنت وسبتي وأنا تضبط بش الله بعد فبراير سنة كلا بدأ كون اللحية لبعتنك مقال كان محرب إن الندي كله وداقه ويل سوماليا أو توجشك جيستي قبل كان إنديانا وأن كنا لهاي لباس سنة كهر إسلامر كان ودن ككبح صدي وهذا ودن أفريقيا كويا للا جسوا قبتي مريكان كان لجسوا عليه haddaba maxaa sababay in ninkan toogashadan uu geysto qofkii uu toogtayna ma dhintay mise dhaawac ayaa soo gaaray dambiyada lagu soo oogay maxay yihiin goorma ayay maxkamadiisa bilaabanaysaa arrimahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idinla wadaago iyo weliba lacagta damaanada ah oo lagu soo daayn karo oo garsooruhu uu shaaciyey balse markaa hadda uu ku xiran yahay xabsiga Hamilton County jailka waxaana lagu soo oogay dacwadahan kala duwan waxaa ka mid ah isku day dil oo ah felony oo level 1 ah armed robbery oo isaguna ah in isagoo hubeysan uu doonayo dhac inuu geysto oo level 3 oo felony ah iyo sidoo kalena aggravated battery oo isaguna level 3 oo felony ah robbery oo dhac inuu geysanayo oo level 3 oo felony ah organized retail theft in wax organized retail theft waxa la yiraahdaa dadka inay dukaamada intay tagaan iyagoo badan ay dhac u geystaan isaguna waa level 3 oo felony ah criminal recklessness waa sidoo kale lagu eedeeyay oo level 6 oo felony ah halka sidoo kalena lagu eedeeyay in uu bastoolad ama qori uu ku taagay qof kale oo level 6 oo felony ah marka dambiyadaasi kala duwan ayaa Jacfar uu ku eedeysan yahay maxkamadda dokumentiyada laga helay waxay muujinayaan markii Cabdi maxkamad la soo hortaagay 29kii bishii January oo hore in uu yiri anigu dambi ma leeyahay oo not guilty plea ayuu qaatay waxaana lagu soo dayn karaa lacag dhan ilaa iyo 1 milyan oo dollar oo kaasha waxaana sidoo kale laga dalbaday baasaboorkiisa inuu soo wareejiyo baasaboorkii waa laga qaatay marka Jacfar Cabdi hadda maxkamadiisa kale waxa ay qorsheysan tahay 8 bisha June ee 6 xilligaasi oo xerbeegti ay go'aan ka gaari doonto inuu dambi leeyahay iyo in kale Hamilton Circuit Court ayaana sidoo kale dacwadiisa ay ka dhici doontaa marka Jacfar Cabdi waa qofkii labaad oo Soomaali ah oo inta uu dhibaato ka geysto hadda sanadihii u dambeeyay Mareykanka gudihiisa carara oo Afrika laga soo qabtay waxaa jirtay Salmaan Xaaji oo 20 jir ah in haweeney wadanka Shiinaha u dhalatay oo qoyskeeda oo gobolka Washington State ku nool soo booqanaysay iyada iyo walaasheeda oo isla socda in Casco baakinkeeda isagoo doonayay inuu dhaco uu ku dilay haweeneydaas waxa la yiraahdaa Yuan Ming waa 67 jir ayay ahayd kadibna Salmaan Cabdi wadanka ayuu ka cararay waxaana uu u cararay Soomaaliya markii dambe Kenya ayuu yimid Kenya ayaana laga soo qabtay bishii July ee 7 ee sanadkii 2025 ee dhamaaday isagana dacwad dil ah ayaa lagu soo oogay 5 milyan oo dollar ayaana hadda isagana lagu sii dayn karaa xabsiga ayuu ku jiraa waxaana uu sugayaa xilliga ay maxkamadiisa bilaabanayso marka waa qofkii labaad oo Soomaali ah oo waliba dhalinyaro ah oo intuu ama toogasho dhimasho ka dhashay ama dhaawac halis uu ka dhashay inta uu ka geystay Mareykanka gudihiisa Afrika u baxsaday isla markaana FBI-du ay gacanta ay ku soo dhigeen marka FBI-du markastaba dabagal ay kugu sameynaysaa labada wadan ee Mareykanka iyo wadanka aad tagtay hadii uu ka dhaxeeyo heshiis wada shaqeyna iyo in qofka ay qabtaan oo labada dal midkood dil ama dhibaato kale ka geystay isku soo dhiibi karaan waa lagu soo dhiibaya markaas kadibna Mareykanka ayaa lagu maxkamadeynaya marka arrintaas ayaan rabay inaan idinla wadaago asxaabta aad iyo aad u mahadsantiin